وبركاته أخيارته سودو هذا waxaan insha allahu tacaala rabnaa inaan wax ka yaran idhaahno sheekadii taraaga oo ku saabsanayd arrimaha luuqadda oo dad fara badan ay ka muujinayaan walaac dad badanna ay commenti ka bixiyeen ayaantii dhoweyto marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan fiirino sida loo enforce garaynaayo oo sharcigan Trump uu saxiixay haddana uu ka daba saxiixay ninka la yiraahdo Sean Duffy oo isagu ah secretary-ga ama xogayaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee dalka Mareykanka so sharcigan haddaan fiirino insha Allah waxaan rabnaa inaan idinka dabageeyo memo ama warqad ay isla wadaageen wasaaradda gaadiidka ee Department of Transportation oo ku saabsan sidii sharcigan luuqadda qofka inuu ku hadla ah oo uu yaqaano haddii kale taraagis uusan wadi karin sidii loo enforce garayn lahaa iyo wixii laga samayn lahaa so ninkan odaga ah saxiixiisa markii uu saxiixayay waxa uu ka dhigay in laba qayb bay u kala qaadeen memogii baan helay oo warqaddii ay gudaha iskala wadaagayeen iyaga dhexdooda oo ay ku dejinayeen policyga sida la yeelayo so qaybta koowaad waxay ka dhigeen in laba qayb bay u kala qaadeen qaybta koowaad waxay ka dhigeen driver interview in darawalka interview lala yeesho taasna waxa waaye bay yiraahdeen darawalka waa la wareysanayaa wareysigaas waxa ay u qoreen sida tan oo soo socota step 1 bay yiraahdeen darawalka interview baa laga qaadayaa si loo go'aamiyo in darawalka uu awood u leeyahay in uu fahmo si ku filan officerka ay wadada ku kulmeen so driver's ability inuu darawalka awood u leeyahay to respond sufficiently to officials inquiries su'aalaha uu weydiinayo inuu ka jawaabi karo darawalka su'aalahaas marka waxaa la sheegay in aan lagu ogolaan doonin telefoon inaad app telefoon aad isticmaashid oo aad sidaas maaragtay ugu turjunto ama lagugu turjumo in aadan isticmaali karin kaarka la dhaho ISP cards Q cardska oo kulligood waxyaabaha wax turjuma ah inaadan isticmaali karin baa la sheegay waxaa kaloo la sheegay phone applications inaan la ogoleyn in aadan qof wacan karinna waa lagu soo daray marka darawalka waxaa laga rabaa in uusan isticmaali karin wax ka caawinayo in uu luuqadda fahmo marka inspectorka ama qofka police officerka ah oo ayaa waxaa laga rabaa ama uu samayn doonaa in darawalka uu su'aalo weydiiyo marka driver's interview marka la dhaho su'aalo yaryar oo iska ciyaalka xaafadda ah xagee ku dhalatay intee ka timi xagee u socotay loorka xagee ka soo qaaday maxaad wadaa waxyaabo iska noocaas oo iska fudfudud baa la weydiinayaa baa la yiri darawalka su'aalo oo hadda ay diyaariyeen oo u qoran oo officer kasta oo dalka Mareykanka jooga looga baahan yahay in uu isticmaalo weli ma aysan soo saarin qof hadda dee lagu qabtayna ma jirto midda kale waxaa aad iyo aad muhiim u ah oon raba inaan idinla wadaago policygan waxa uu dhaqan gelayaa bisha soo socoto 20keeda June 20th buu dhaqan gelayaa marka waxay yiraahdeen haddii officerka uu dareemo in aadan ku filnayn in aad jawaabo ka siiso arrimaha uu ku weydiinayo oo aad si isku filaansho ah uga jawaabi kari weyso wax yar wuxuu isku dayayaa inuu horay ku sii wado laakiin haddii uu arko su'aalihii uu ku weydiinayay su'aalo naftooda laba qayb baa loo kala qaadayaa kuwa waxa waaye waa official inquiries su'aal iska caadi ah kuwana waxaa laga dhigayaa baa la yiri direction uu ku siinayo haddii uu marka amarku siiyo amarkaas waa in aad fahmi kartaa hadda amarkii lagu siiyey aad fahmi kari weyso then waxaa dhacayso in uu officerka go'aan ku gaaro in aadan luuqadda ku hadli karin oo luuqadda dhib ay ka haysato so taas marka waxay keeni doontaa baa la yiri there's no need to go to the next step laba step bay ka kala dhigeen soo maaha midda hore waxay ka dhigeen driver interview haddii marka interviewgiiba aad ku dhacdo oo aad darawalka directionkiisana waxa uu ku faraya fahmi weyso oo uu ku sheegaye aadna fahmi weyso inquirieski su'aalihii uu ku weydiinayay waxay noqonaysaa marka officerka inuu go'aan ka gaaro oo uu go'aamiyo in stepka labaad
oo ay ka dhigeen in aad garan kartid highway safety signs highway traffic sign recognition assessment baa la yidhahdaa testi ama imtixaan uu kaa qaadayo officerka uu ku go'aaminayo in calaamadaha aad garan kartid waddooyinka ku yaala so waxaa la yidhi haddii marka hore oo aad fahmi weyso su'aalihii uu ku weydiinayey iyo directionkii uu ku siinayey waxaa meeshaas ka baxay oo u dhammaatay oo ku dhammaaday in uu sii wado qaybta labaad uu gudbo laakiin haddii aad fahmayso xoogaa wax yarna aad gegafayso waxa laga yaabaa inuu kuu diro qaybta labaad marka maxay noqonaysaa saanay u kala dhigeen labada qaybta labaad waxa waaye in calaamadaha highwayada aad garan kartid marka calaamadaha highwayada markaad lagaa rabo inaad garato waxaa qaybo weyn ka ah calaamadaha not just kuwa stopka iyo yieldiga iyo kuwa iska taagan keliya maahe hataa waxay isticmaalayaan kuwa electroniga ah oo flash gareeya so waa taqaanaan qofkii taraag wada ama rajo ka qaba inuu wado adigoo freewayga maraayo waxaa arkaysaa calaamad flash garaynaysa specifically si gaar ah marka maaragtay lagaa rabo inaad samaysid break check oo kale oo breegyada la check garaynayo meelaha barkood buuraha markaa ka daadegaysid taraagyada waxaa lagu sameeyaa break check ama waxaa dhacdo in ay samaynayaan marmar inspection oo meel aysan way station aadan ku ogaan jirin ama miisaan aan oolin ama officerre aysan joogi jirin inay calaamad dhigtaan maaragtay birqaysa oo ifaysa calaamadahaas waxa waaye waa electronic waxaa la dhahaa dynamic message signs calaamado oo dynamic ah oo gurguura baa ay ku tusayaan so waxay ku siinayaan electronic display changeable kuwa isbedela oo dynamiga ah hataa way ku soo darayaan oo print garaysan marka wuxuu ku tusayaa calaamado weliba calaamadaha taraaga marka waxaan idin soo jeedinayaa asxaabtiina taraaga wada ama rajada ka qaba inay soo wadaan in aad hataa haddii calaamadaha aa u baahan tahay refresher inaad ku samayso ama googleka aad ka gasho oo traffic highway signs aad geliso ama aad gasho maaragtay DMV da buugga ka soo qaadatid si aad maskaxdaada u refresh garaysid haddii marka aad xoogaa adii officerka soo yara fahantaan waxna uu dareensan yahay in xoogaa luuqadda weli aad si fiican u aqoonin wuxuu ku wareejinayaa ama ku gudbinayaa qaybta labaad oo ah inaad calaamadaha highwayada aad fahmi kartid so highway traffic sign recognition assessment ama assessment test waa isku hal imtixaankaasaa laga qaadayaa oo uu ku tusi doono buug dhan oo calaamado iska wataa calaamadahaas waa inaad garan kartid waxa ay yihiin like let's say 7% downgrade oo kale baa lagu dhihi what does this calaamad mean calaamadan waxa waaye you about to go down the waxa hoos uga digi rabtaa waxa hoos uga daadan rabtaa buurta aad ka daadegi rabtid ama aad ka dhaadhici rabtid waa buur dherarkeedana uu yahay 7% downgrade-ka marka waxaa arkaysaa in ay ku qoran tahay trackers use low gear oo kale waaga hore taragyada waa iska automatic badankood laakiin haddaad marshe wadatid oo kale gear hoose isticmaal because weightkaa kusoo riixayo so labadaas qayb ayay u kala saareen luuqadda qayb waxa waaye bay yidhaahdeen driver interview qaybna waxa waaye yidhaahdeen traffic sign recognition assessment ama test laga qaadayo si aad u kala garan kartid calaamadaha uu kala leeyahay freewayga ama loogu talagalay specifically gaar ahaan kuwa traaga loogu talagalay traaga calaamado badan buu leeyahay oo ka duwan kuwa gawaarida yaryar oo wadooyinka saaran waxaa ka mid ah maaragtay engine brake required no engine brakes trackers use low gear oo kale downgradeyada waxaan oo dhan waxay apply garaynayaan brake checkyada waxay apply garaynayaan gawaarida taraagyada ah gawaarida yaryarna shaqo kuma laha marka language in English language proficiency-ga ELP programkii la dhahayay labadaas ayaa loo kala qaaday marka hore officerka wuxuu kula yeelanayaa interview
haddii uu dareemo inaad wax fahmayso laakiin xaaladaada ay san 100% ahayn wuxuu kaa qaadaa step 2 haddii uu arko inaad completely ever aad tahay oo aadan waxba aadan fahmaynin ma gudbe aad tahay then waxa uu ku leeyahay step 2 ba kulama aadayo calaamadna kaama qaadayo meesha iyada ah ayuu shutdown kaaga dhigaya programka marka ay wadaan waxay u bixiyeen America First Safety First bay u bixiyeen America First Safety First waxa waaye waxay leeyihiin qafan English aqoon track ma wadaayo dalkan Mareykanka so Englishka aad aqoonaysana waa xoogaa English oo sufficiently kugu filan indoora oo kugu filan waa inaad garanaysaa bay yiraahdeen so arinkii haddii aad ka walwalsanayd ama aad rabtay in aad ogaato waxa tracking memoga ka soo baxay ama aad ka walwalsanayd maaragtay isweydiinaysay maxaa la isweydiin doonaa maxay noqon doontaa this is waa video maaragtay aan ugu talagalay inaan ku fahansiiyo ama qof walba u sheego so don't forget to share the video inshallah as many truck drivers as possible dadkii walwalka uu ka hayayna isdejiyaan leenahay sababtoo ah imtixaanka kolley interviewga su'aalaha lagu weydiinaya su'aalo iska yara fudfudud bay noqonayaan way su'aalaha way sii badanayaan haddii uu dareemo officerka inaadan luuqadii garanaynin qaybta labaadna waa calaamadaha highwayada inaad garan kartid so intaa haddii aad garan kartid oo isku kalsoonaan kartaa wax weyn ma aha sidii kaaga ekaan kartaa insha allahu tacaala marka share gareeya hadduu ilaahay idmo haddaad nagu cusub tahay subscribe channelka haddaa hore noola joogtayna like share isugu dar insha allah war wadin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh